بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولا ليال الحمد لله، waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa dhammaanteen gaarsiinta alle subxaanahu wa tacaala uu na gaarsiiyey, cumrigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo barakeeyey, oo alle subxaanahu wa tacaala ina soo gaarsiiyey bishan ramadaan ee barakaysan. ayaan alle uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala, walilaahi alxamdu calaa daalik. maxaa yeelay gaarsiinta ramadaan lagu gaarsiiyo waa nicmo weyn, waa abaal weyn oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu galay. xasuuso kam intee asxaabtaada ah, kam intee deriskaaga ah, kam intee qaraabadaada ah, kam intee yacni mucaamalo idinka dhexaysay ama derisnimo idinka dhexaysay oo ciidda hoosteeda ku jira, oo bishan ramadaan fursad ay ku soo gaaraan cumrigooda alle subxaanahu wa tacaala uusan ugu deeqinin. salafu saalix 6 bilood oo sanadka ka mid a intaan ramadaan la gaarin ayay ku ducaysan jireen: اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام. إلهو بش رمضان نقارسي، إلهو نوغو ديق بش رمضان إنا نكفى إذا سنو أو صوم إيا تلاوة القرآن الكريم إيا قيام الليل أن نكفى إذا سنو إلهو نوافجي 6 بلوضي كدو عيسان جرين. وأهمية إيا قيمها بش رمضان أي لا دهي أي درنسان يهين أو أي أقيهين. sidaas awgeed walaalayaal, dhammaanteen aanu isku diyaarinno bisha ramadaan sida aanu uga faa'iidaysan lahayn fursaddan qaaliga ah ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu inoogu deeqay. aanu mar walbaba nafteenna jihaad aanu kula galno sidaan fursaddan dahabiga ah ee qiimaha badan aanu uga faa'iidaysan lahayn. walidaalika nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi, jibriil oo ra'iisulmalaa'ika ah ayaa habaaray qofkii ka faa'iidaysan waaya fursadda ramadaan. nebi moxamedna waa aaminiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi habaarka. ogaaw qof walba ee mu'min ah iyo gabar walba ee mu'minadahay ogaaw in malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxoodii uu ku habaaray, habaarkaasna nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama uu ajiibay. haddaad ka faa'iidaysan weyso bisha ramadaan fursadda qaaliga ah iyo nafaxaadka iyo barakaadka iyo raxmaadka iyo nasamaadka alla uu dhex dhigay subxaanahu wa tacaala. waxaa imaamulxaakim iyo bayhaqi ay warinahayaan iyo kayrkoodba nabigu sala allahu calayhi wasalama inuu yidhi: ina jibriila carada lii lama irtaqaytu daraja aluulaa faqaala bacuda man adraka ramadaan falam yugfar lah. jibriil ayaa ii soo banbaxay mimbarka jaranjaradii igu horreysay markii aan koray ayaa jibriil ii yimid buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam. markaasuu wuxuu igu yidhi: qofkii ramadaan soo gaara oo ramadaan aan loogu dembi dhaafin oon ka faa'iidaysan, naarta allaha ku fogeeyo. aniguna aamiin ayaan idhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam. maxaa yeelay wax la habaaro xaquu u leeyahay qofka fursadda qaaliga ah ee albaabada jannadu ay furan yihiin, oo albaabada samadu ay furan yihiin, oo raxmadda alle subxaanahu wa tacaala iyo dembi dhaafka alle sida roobka ay u da'ahayaan u doogan waayey, qalbigiisa iyo gacmihiisa u doogan waayey. waa ayaan daro. soomaalidu waxay ku maamaahaan, waxay yidhaahaan roob intuu da'ayo ayaa la doogtaa. haddii roobku intuu da'ayo aadan dooganin waad ku qaday naxariistii roobka iyo biyihii iyo deeqdii rabbi subxaanahu wa tacaala waad ku qaday. sidaas awgeed aanu dhammaanteen nafteenna xun ee daalimadda ah aan ku khasabno, kula jihaadno in rabbi subxaanahu wa tacaala bishan gudaheeda uu nagu daro malaayiinta uu naarta rabbi uu ka xoraynayo subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay waxaa furan albaabadii jannada.
albaabadii jannada ayaa furan dad badan oo naarta xaq u lahaa ayaa alle subxaanahu wa tacaala ka soo leexiya oo dariiqa ahlujannaha u soo leexiya oo naarta sidaa looga xoreeya xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi waa xadiis qudsi kullu camali bni aadama lah ila asawm fainahu lii wa ana ajzii bih rabbi subxaanahu wa tacaala xadiis qudsi wuxuu ku yidhi bukhaari iyo muslim ay warinayeen camalka bini aadam oo dhan isaga iskale ilaa soomka mooye soomka aniga iskale anigana abaalmarinaya qofka saa'imka ah ee sooman yacni ulajeedada waxaa weeye soomka ajirkiisa lama soo koobi karo ajirka soomka laga helayo rabbi subxaanahu wa tacaala wuu qariyey oo wuxuu ka dhigay wax weyn oo bini aadamka maskaxdooda iyo caqligoodaba ka weyn oo miro iyo ajir ah inuu alle subxaanahu wa tacaala uu ku bixinayo waxaa xadiiska uu ku yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wasiyaamu junna soomku waa gaashaan wuxuu gaashaan kaaga yahay macaasida iyo dunuubta iyo naarta ayuu kaa xafidaa naartaa looga badbaadaa naartaa looga gaashaantaa soomka waxa uu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam soomka inta lagu dhex jiro in lays ilaaliyo carabku waa inuu soomo afku waa inuu soomo dheguhu waa inay sooman yihiin indhuhu waa inay soomaan gacmuhu waa inay soomaan luguhu waa inuu soomaan calooshaadu waa inay soomto kulligaa waa inaad alla dartii u sooman tahay maxaa yeelay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay faidaa kaana sawmu yowmu axadikum falaa yarfud walaa yaskhab haddii soomka aad gaartaan oo bisha ramadaan allaba subxaanahu wa tacaala idin waafajiyo afkiinna ilaashada oo foolxumo iyo faxshaa iyo waxa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala cala gelinaya iyo hadallada erayada malayacniga adduunkaaga ee aakhiradaada aan ku anfacaynin ka gaabsuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam fain saabahu axadun aw qaatalah falyaqul inii saa'im qof hadduu kula dagaalamo ama uu ku aflagaadeeyo ha u jawaabinuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku dhe anigu waan soomanahay adigu soomkaagii haddaad ku cayaartay maangaabnimo ay ku tahay soomkaagii inaad sidaa aad u khasaarisay aniga soomkayga ma khasaarinayo alla dartii subxaanahu wa tacaala waa inaad ku tiraaho anigu alla dartii ayaan u soomanahay mana doonayo soomkayga inaan khasaariyo soomkayga inaan beerdaleeyo ogaw qofka saa'imka ahow rabbi agtiisa qaali inaad ka tahay ogaw haddii soomkaagu uu yahay soom waafaqsan sidii rabbi subxaanahu wa tacaala uu doonayay sidii rabbi uu kaaga raalli ahaa sidii rabbi uu kugu jecla haddii soomkaagu uu waafaqsan yahay ogaw rabbi subxaanahu wa tacaala inaad qaali ku tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi lakhuluufu fami saa'im adyabu cinda allahi min riixi lmisk qofka sooman wasakda iyo xayaabada afkiisa saaran alle subxaanahu wa tacaala agtiisa way uga udug badan tahay way uga caraf badan tahay miskiga caraftiisa waxaa ka caraf badan qofka sooman wasakda afkaaga iyo carabkaaga saaran bal eega walaalayaal waa wasakda inagu aanu dhibsanayno oo agteenna ka qurmoon oo agteenna ka xun alle subxaanahu wa tacaala wuxuu dareensan yahay wasakdan waxaa afkiisa saaray oo afkiisa qallajinaya waa alle subxaanahu wa tacaala soomkiisa darti waa soomka dartii oo alle subxaanahu wa tacaala ilaahay dartii afkiisa uu xayaaboobay ilaahay dartii afkiisa uu yacni u wasakhaysan yahay weeye waa athar iyo wax ka dhashay cibaado iyo jacayl rabbi subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa uu jecel yahay sidaasaa alle subxaanahu wa tacaala soomkaaga uu u qiimeeyey alla agtiisana subxaanahu wa tacaala aada uga qiimaysan tahay waxaad ogaataa in alle subxaanahu wa tacaala albaabada jannada ka mid ah uu ugu magac daray dadka sooman ay gaarna ku yihiin cid kalena aysan la gelaynin albaabka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiiskii bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayeen waman kaana min ahli siyaam duciya min baabi rayaan qofka soomka ilaashada oo soomka ku dadaala oo soomkiisu uu yahay soom alla dartii ah waxaa looga yeeraa looga gacan haatiyaa albaab jannada albaabadeeda ka mida oo lagu magac daray rayaan albaabkaasaa looga gacan haatiya oo uu ka gala jannadaadu way diyaarsan tahay udugaagu wuu diyaarsan yahay ridahaagu wuu diyaarsan yahay qofka soomanow haddii soomkaaga aad ilaashatid waxaa la doonahayaa walaalayaal inaanu dhegaheenna ilaalino
afkeenna ilaalino indhaheenna ilaalino carabkeenna ilaalino inta aan soomka aanu ku jirno maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay qofka sidaa aan isku ilaalin oo waa soomanahay keliya yidhaaha wuxuu heesahana iska dhegaysanaya filimka aflaamta xuxun iska fiirsanaya shaxdiisa iska cayaaraya laadhuudiisa cayaaraya turubkiisa cayaaraya qabiilka iyo qabyaalada meelaha looga sheekaynayo jooga fadhi ku-dirirada maaragtaahay afka uga dagaalama oo sidiisa fadhi ku-dirirada u camirta haddana waa soomaya afka ka dhahaya inuusan soomkiisa ka helaynin ilaa gaajo iyo haraad mooye wax kale nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man lam yadac qawla الzuur wاlcamala bih falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah hadalka beenta ah iyo brobagandada iyo dembiga iyo faalxumada iyo macaasida iyo fujuurka qofku hadduusan iska dhaafin soomkiisa ka heli maayo gaajo iyo haraad mooye wax kale ka heli maayo rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaad ogaataa walaalkayga iyo walaashayda saa'imada ahay ee soomanow waxaad ogaataa maalin walba in ood ilaahay dartii aad u soomto oo soomkaagana aad ilaashato ood waardiyeyso in naarta aad ka sii fogaanayso 70 sano intii loo socdo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen ayuu ku yidhi maa min cabdin yasuumu yowman fi sabiili illah ilaa baacada allahu bidalika alyowm wajhahu can innaar 70 khariifa addoon ma jiro ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay dartii u sooma hal maalin oo keli ah ilaa wejigiisa ilaahay wuxuu ka fogeeyaa 70 sano meeshii loo socdo ayaa wejigiisa ilaahay ka dheereeya oo naarta alla uu ka fogeeyaa ka waran 29 maalmoodood sooman tahay imisaa naarta ilaahay uu kaasii fogeynaa ka waran 30 maalmoodood sooman tahay imisa ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu naarta uu kaa fogeynaa waxaad ogaataa dembi dhaaf in soomka aad ka helaysid oo dembigaaga oo dhan alle subxaanahu wa tacaala uu ku dhaqayo oo uu ku dahirinayo maxaa yeelay xadiiskii uu warinayey bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayeen ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min dembih qofkii ramadaanka sooma rumayn ilaahay uu rumaysan yahay ballanqaadkiis waxaa qofka saa'imka ah loo ballanqaaday isagoo rumaysan qofkii sooma ajir dalabna u soomaya ajir inuu xisaabsado oo istusus iyo ha lagaa sheego iyo ha lagaa maqlo iyo qof hebel magac weyn ha kuu yeelo waa soonkiisu ilaashadaa ha ku yidhaaho aqraashaa xuxun aan ula jeedin ilaahay dartii inuu rido geliyo jannatulfirdowsna alle subxaanahu wa tacaala ugu deeqo sidaa u sooma dembigiisii horreeyey oo dhan waa la dhaafaa buu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu tilmaamay isbeddel weyn inuu caalamkan uu ku dhacayo marka bisha ramadaan la gaaro xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi idaa jaa'a ramadaanu futixat abwaabu aljanna wagulliqat abwaabu nnaar wasufidat ashayaatiin 3 arrimoodoo waaweyn ayaa la sameeyaa bisha ramadaan markii la gaaro albaabada jannada waa ballaqan yihiin buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam albaabada jannada ayaa la furaa oo la ballaqaa markii ramadaanku uu yimaado albaabada naartana waa la xiraa shayaadiintana waa la silsiladeeyaa oo waa la xirxiraa albaabada jannada sababta loo ballaqayo waxay tahay waa dhiirigelin addoommada saalixiinta ah saa'imiinta ah caabidiinta ah lagu rido gelinayo inay meeshan qiimaha badan ee jannadan ay usoo shaqaystaan jannadan inay usoo shaqaystaan jannadu maxay tahay maxaad ka og tahay falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala dadka saalixiinta ah oo ilaahay caabuda oo naftooda la dagaalamay shahawaadka iyo dhalanteedka adduunyada naftoodii ka gooyey naf ogi ma jirto maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey waa kayd wax weyn oo naciim ah ayaa rabbi u qariyey caqliga bini aadamka iyo dareenka bini aadamkaba ka weyn ayaa rabbi ugu deeqay subxaanahu wa tacaala falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaa'an bima kaanuu yacmaluun iyadoo laga abaalmarinayo camalkii ay sameeyeen wax ogaan karaahi ma jiraan waa jannadaasaad ku heli soomkan haddaad ilaashato jannadaasaad ku heli
جنة محيتها وجنة رسولك صلى الله عليه وسلم وكير فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر waxaa jannada ku dhex jira buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wax il bini aadam hore aysan u arkin dheg bini aadamna hore aysan u maqlin qalbi bini aadamna hore aan ugu soo dhicin oo naciim iyo suruur daa'im ah ayaa laga helaa jannada gudaheeda wax aqligaaga ka weyn oo naciim ah way waxa jannada ku dhex jira wa jannada rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri law ittala'at imra'atun min ahli al-jannah على أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما ريحا قبر أهل الجنة كم إذا هذه الدنيا أي هل مرصوف فيرين لهيد عرك يردولك أنت قد حيث أدوك يعرف يكبوحين لهيد حالك يا با عرفت أن هذا الدنيا تعالى قفك الدنيا عاقا مرة يؤون أما أكتا هذا فردية أم بادريمي كرا أما قولك كوكولة جيرا لكن عرفت دتك أهل الجنة كسو كريسة عالم كان أن كنا لنهاي أوردن هل قبر أو قبلها أهل الجنة كم إذا وساء الدنيا أصلا في رسا أي عالم كعرف كيس وقش شيء كان وقص كيا كل أدو جدو بوحين لها يور رسولك صلى الله عليه وسلم ولا نسيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها شاش كم مدح هذا سارن قبل أهل الجنة شاش كم مدح هذا سارن ayaa ka qaalisan adduunka dahabkeeda iyo dollarkeeda iyo danaaniirteeda iyo waxa dul saaran oo dhan shaashkeeda ka qaalisan gabadha ahlul jannaha ah adduunka oo dhan ka qaalisan rasuulku sallallahu alayhi wasallam mubarak alayhi taasaad ka heli oo naciimka ah haddaad soomka ku dadaashid waa soomka waa mustaqbalka aad ku farxayso soomku waa mustaqbalkaaga ku farax geliyi doona marka qabriga iyo eelka lagu dhigo asxaabtaadu ay ka soo dareeraan ahaladaadu ay ka soo dareeraan qaraabadaadu ay ka soo dareeraan dariskii ku raacay oo qabriga ku galiyay ay ka soo dareeraan meesha godkaaga ayaad ku mahdin doontaa oo camalkaagii saalix ahaa ayaa wehel ku noqon doona ku farax gelin doona walidaalika rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiiskii bukhaari uu warinayay ayuu wuxuu ku yiri lisaa'imi farxatan yafrahuhuma idha afdara fariha bifidrihi wa idha laqiya rabbah fariha bisawmihi wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofka sooman waxa uu iska leeyahay laba waqti uu farxaa marka xilliga afurka la gaaro wuu farxaa qofka sooman maxaa yeelay wuxuu ku faraxsan yahay waajibkii alla uu dul saaray oo uu gutay ayuu ku faraxsan yahay wuxuu ku faraxsan yahay waafajinta alla subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey cibaadadan soomka ah ee qiimada badan alla uu waafajiyey ayuu ku faraxsan yahay markii uu rabbi uu la kulmo rabbi hadduu la kulmana oo qabriga uu galana wuxuu ku farxaa soomkiisii ayuu ku farxaa ومهما عربت أي راهان عند الصباح يحمد القوم الصرى أيكم مهما عربت وحيراهن واجو مركو دلاعه أو صبحي لجاره أي دلمتكي هبينك لما هديا قفك مسافركو مركو هبينكي دلمدو أو هبينكي مسافة دير أو جويو أو مسافة دير أو صعدو صبحي ومهديا dadaalkiisii iyo dheelmadkiisii iyo rafaadkiisii waagu markuu dilaaco ayuu mahadiyaa ogow qofka rabbi ku xiranow soomkiisa ku dadaalayo rabbi caabudayo iilka markii lagu dhigo ayaad dheelmadkii habeenka cibaadada aad u soo dheelman jirtay xilliga dadka dabaaladu ay quurinayaan dadka dabaaladu shayaadiinta iyo naftoodu silsiladaha ay ku xirtaan adigu rabbiga albaabkiisa aad taagan tahay adigoo dhahaya yaa allah yaa raxmaan yaa raxiim dhahaya waxaad mahdin doontaa iilka markii lagu dhigo waxaad mahdin doontaa maalinta ahwaalul qiyaama ay jirto oo kurbada weynu ay jirto ayaad mahdin doontaa dheelmadkii habeenka aad mahdin doontaa sidaas awgeed waxyaalaha ugu waaweyn oo ramadaanka aanu qabanayno walaalayaal waxa ugu weyn kow inaanu ducada badinno qof walba waan ogsoonahay wuxuu leeyahay muraadiyo waaweyn wuxuu leeyahay xaajaad fara badan wuxuu leeyahay dana fara badan isugu jira oo ugu weyn tahay danta ugu weyn oo aanu leenahay inaanu gaarno umniyada ugu weyn oo aanu doonayno inaan xaqiijinana waa ilaahay ridihiisa subxaanahu wa tacaala inaanu rabbi raalli gelino
ربي إنا نرالي قلنا وي ودنت أقوين آنو لأنهاي جنة الفردوس إنو ألا نقليو عافمات كان الله سبحانه وتعالى إنو نوجد يقو عافمات بلارا إيه حسن الخاتمة إن إلهي ونوجد يقو ولذلك قف والبا مراد يد أقوى وين إلهي وبشي لقصة بندق لها حديث ابن حبان صحيح سأكورنا أي رسولك صلى الله عليه وسلم حكيري 3 لا ترد دعوتهم سدح قف الدعاء ذا لما سور رديو دعاء ذا ولا أقبل سدح روح سدح ذا قف وحاكو جري الصائم حتى يفطر قفك صومن إلى أو كأفريو دعادي سلم سور رديو ولا أقبله رسولك صلى الله وسلم وبارك عليه هذا من ماشى فديك درك إيه ما لا يعنيك إيه شاكذا إيه فيرسيك في المدح حن إيه بنونيك قالوا أيمان كاجا إيه مسكح هذا أي كوع عياريان أو عبادة هذا إيه أديك يا ربي أي إذن كلا يان أو مستقبل كاجا أي كود ليان أنت ماركتاه كوح كلا أو بنونيك عيارت أتاجر لهيد أنت قال كان كم مشغول لهيد إنها فيرسة بنونيك الله ذا فيرسو مصحف كفيرسو كم مشغول كتاب قرآن سو قادو لبا جزء آخرسو سدح آخرسو إساقا دان دمي ختم مركا وقود دمبيه تصبح سو قادي أذكارت هذا آخرسو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إمسا السرود إمسا الجيدود إمسا وبي أي جنة لغا قد ديارنا هي انت هذا إلهي سبحانه وتعالى أذكارتيسا إيو الدعاديسا أدكو مشغول سنتهاي سيداس أوجد لما أنت وحان رجينينا لما أنت وحان رجينينا إن كفا إذيسانو بشن بركيسان أو الله سبحانه وتعالى ونوغد ديقي أو الله سبحانه وتعالى فرصة قالئة أو إلهي ونوغد ديقي أو نسيي وحيالها إلهي سبحانه وتعالى أمدا محمدية ونوغد ديقي أو حجر ولا أمده كوري آن لسينين أمده هوري آن لسينين حديث وحاجري إمام أحمد ومسند كيسا كوريناي ورسولك صلى الله عليه وسلم وكيري أعديت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعدهن أمة من الأمم أمد إذا وحى رمضان لقسيي 5 أرمات وأمد لسيي والله قد داقي أي سنجرين أي لسيي أمد إذا رسولك صلى الله عليه وسلم وحشنت أرمات كمدها إن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا ملائكة الدم بالداف ويدينيسا أو أدعينيسا قفك صومنا أمد إذا كمدا إلى أفرك كجارو كأفريسد صوم كاغو غورما هدي إندهاغو أي حرامتا كصومان دغهاغو حنتا إيا قبيالدا إيا مالا يعنيغا أي كصومان جيركاغا دان إلهي درتي و خيران يahay إلهي درتي يعني الله و ودا كونترولان يahay جيركاغا دان إلهي سبحانه وتعالى و ودا أديعايو إلهي و ودا عابدايو waxaad ogaataa malaa'ikatu الرحمن inay ku mashquulsan yihiin adiga inay dambi dhaaf rabbi ku weydiiyaan subhanahu wa ta'ala waxa kamida waxyaalaha ummadda loogu gaar yeelay oo ummadihii hore aysan haysanin wayuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu maalin walba maalmaha ramadaanka kamida jannada Allah subhanahu wa ta'ala wuu sii udgiyaa wuu sii qurxiyaa wuu sii nuuriyaa Allah subhanahu wa ta'ala horumar dheeraada ayaa jannada lagu sii sameeyaa maalin walba quruxa loo sii ziyaadiyaa jannada waa dhiirigelin الضمادة وناكسن نقول للرجالين أيوه رمضان كأنه كفى إذا استان وهكذا كم إذا دقها الله سبحانه وتعالى أمضا وكقارية لبشر رمضان ويغفر لهم في آخر الليلة هبينك وقدم بيا هبين نذر رمضان كم إذا الله سبحانه وتعالى دم دافو بحيا كمان كن يا ملايين نارت حق ولهيد إن لقليو أي إلهي فضل كيسا إيا كرم كيسا إيا جود كيسا إيا رحمة كيسا أي إلهي استقع فيها مركز ديوانك أهل الجنة إلهي وكقرة سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين الفائزين المستبشرين في هذا الشهر المبارك الميمون شهر رمضان إلهي وحمد سننا سبحانه وتعالى
كوي كفا إذيستا ودنبي قوضا الدافو وربي سبحانه وتعالى وكرها للنغضو وجنة الفردوس مأوه ذا إلهي سبحانه وتعالى جيف كودا حق وكرقو أيان إلهي ويدي سننا الله إلهي إنو نقدر سبحانه وتعالى وحن ويدي سننا ربي سبحانه وتعالى استقامة إلهي إنو نقود ديقو إيه حسن الخاتمة قبورتي أننا هدانو لمنو إلهي ونوغدقو روضة من رياض الجنة إلهي ونوغدقو هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.